iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dunida muslimka qaybo badan oo kamid ah laga xusay dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa xiriyaha qaxootiga Dadaabna waxaa si weyn looga xusay xuska dhalashada mawlidka nabigeena Muhammad rasuulullah ya khayral baraya rasuulullah ya khayral baraya alayka salatu rabbika ya Muhammad qasiidada nabi amaankii waxay qayb ka tahay xuska nabigeena Muhammad naxariis korkiisa ha ahaatee waana munaasabad weyn oo lagu qabtay xiriyaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan xirada qaxootiga Xagadheer munaasabadan ayaa waxaa soo agaasimay Sheekh Cabdiwaahid Yaqoob Cali waxaana lagu qabtay xaafadda D5 halkaas oo sheekhu uu ku leeyahay xarun weyn oo kitaabta laga raacdo salli ya rabbi ala khayri khalqi ahmad intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa lagu dheeraaday isbaraarujinta iyo isxusuusinta jacaylka suubanaheena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaana munaasabada dah furay Sheekh Wali Sheekh Maxamed oo kamid ah culimada waaweyn ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay ku leeyihiin gudaha xiriyaha Dadaab Ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala oo nabigeennii iyo rasuulkeennii ka dhigay rasuulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nicmata ka weyn aan heli lahayn haba yaraatee ma jiro nicmooyinka Ilaahay uu bixiyo way farabadan yihiin nicmatul iimaan ayaa u weyn ayadoo nicmatul iimaan u weynta ay haddana rabbi subhanahu wa ta'ala nagama dhigin ummatu Muusa rabbi subhanahu wa ta'ala nagama dhigin ummatu Ibrahim ummatu Ciisa ummatu Daawud rabbi wuxuu naga dhigay ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam خير خلق الله على الإطلاق خلق إلهي أبو ري سيدك أنبياء أيا نبيني إلهي كردقي أمدي سي أيو إلهي نودوري سبحانه وتعالى أمد محمدية مركا أوه الرئيس وحا لقدونا يا إناي إساقون ستأيدك أمدهان هدان إساقون سنة أمدهان ميزانك عن كفر دينه sujuudan madaxa ku hayn lahayn habeen iyo maalin iyo dharaar anagoo Ilaahay ku shukrinayna subhanahu wa ta'ala qaali weeye raqiis ma ahan in ummadda nabi Muhammad Ilaahay uu naga dhigay inaan Ilaahay uu mahadino ugu shukrino weeyaan amaanta aan amaananahay waxaan ku helnay rasuulullaahi Muhammad darsiisa sallallahu alayhi wa sallam waa galad Ilaahay na siiyay nabi Muhammad Ilaahay baa nagu galadeystay ولله الحمد والمنة كونك يا إلهي أصو صاري رسول الله محمد إساقو مجدي ويهي كونك الظلم كجرو كونك الشرك كجرو كونك حمان تلغفان تميو كونك الظلم تلغفان تميو أيو إلهي وحصادر يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم كونك أيو افتيميي توحيد أيو كو افتيميي أخلاق أيو كو افتيميي edeb ayuu ku iftiimiyay cilmi ayuu ku iftiimiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin baqdin laga ma qabaanayo gaal iyo kaafir iyo inta la midka ah inay xaq legdaan ay aamusiyaan dhicmayso maxaa yeelay ummadda tan shanigeedii ayaa aad u ballaaran waa ummadii ummadaha lagu khatimay tawxiidka iyo quraanka kariimka aan ilaa qiyaamo saaca ay uskanayaan nacam way dhici kartaa culaysyo inay yimaadaan laakiin ummaddu ma dhimanayso ummadan muhammadiyada ah ma dhimanayso rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku xirnaanshihiisa rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeclaantiisa rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dhawaanshihiisa waa tan aad arkaysaan dunida isbedel yaani ku sii socota sanadba sanadka ka dambeeyo ayaa waxa sii badanaya oo sii kacaya arlada Ilaahay buu nabigu sii furanaya sallallahu alayhi wa sallam fi Europa wa fi Amerika wa fi Aasiya adduunka oo dhan wa fi Afriqiya nabiga ayaa sii furanaya tawxiidka ayaa sii furanaya baraha bulshada marka daawataan waad yaabaysaan meel waliba waxa laga soo warinayaa yaani mawlidka iyo dhalashada nabiga iyo farxadeedii loo dabaaldegayo
dhanka kalena Sheekh Abdiwaaxid Yaquub Cali oo ah qabanqaabiyaha munaasabadan ayaa isna dhankiisa qayb ka ahaa hadal jeedinta maxaadarooyinka xuska mawliidka taasoo ujeedku ahaa in qof walba ay waajib ku tahay inay mas'uuliyadi ka saaran tahay jacaylka nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala ikhwati wa ahibati fillah waxaanu sugu imaanay waa nabigeena weynayntii calayhi salaatu wasalaam waxaanu sugu imaanay waa raxmadda ilaahay weynaynteeda subxaanahu wa ta'ala ilaahay uu ku tilmaamay nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmad inuu yahay wama arsalnaaka ilaa raxmatan lil caalamiin nabi maxamed kuma aanan dirin ilaa raxmad tahay maasi wallahi aad raxmad u tahay mooyee kuma aanan dirin ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa ta'ala waa miduu nabiga asaga ka waramaya calayhi salaatu wasalaam inuu raxmad ilaahay soo diray yahay oo nabiga uu leeyahay ana rahmatun muhdaat aniga waxaan nahay raxmadii la soo hadiyay baan nahay uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaan isugu imaanay waa ilaahay raxmadiisa waxaan tacdiiminayna waa ilaahay raxmadiisa waxaan enerjigana ku bixinayna waa ilaahay raxmadiisa waxaan xooganaga iyo xandhadanada isugu darayna waa ilaahay raxmadiisa waxaan ka sheekaynayna waa ilaahay raxmadiisa wa bil aksi hadda xaqirtana waxa la xaqirta adiga un baa ku dhibana waa ilaahay raxmadiisa hadda waxaan tacdiimin ahad caadi ma ahane waa ilaahay raxmadiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmad buu wuxuu ahaa baariga iyo faajirka kan baariga iyo kan faajirka raxmad buu ahaa waa kan ibn Abbas leeyahay rahmatan lil barri wal fajiri Mustafa calayhi salaatu wasalaam raxmad ayuu ahaa kan baariga iyo kan faajirka raxmad ayuu ahaa markaas wuxuu yiri laana kullu nabiyin idha kudiba ahlakallahu man kadabahu nabi kasta markii la beeniyay ilaahay ahad ka beeniyay waa halaagay laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ahad ki beeniyay halaag lagu ma soo dajinin waa loo dibdhigay ilaa uu ka dhinto ama ilaa qiyaam saaca waa kan ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim nabi maxamedow gaalada mid calaabay ilaahay ma ahan oo dhaxdooda ku sugan dhaxjooga nabiga uu dhaxjooga calayhi salaatu wasalaam ayaan ciqaab lagu dajinaynin sida ambiyada hore ummadahooda ama rusushii hore markay beeniyaan dhulka lagu soo daayay ciqaab dabeel lagu soo daayay halaagayso ma aha dhagxaan lagu soo daadinay halaagayso taas waxay ku heshay ummadan muhammadiyada gaalkeeda iyo muslimkeediba ummadan ummatul dacwa iyo ummatul ijaaba waxay ku heshay raxmadda nabiga calayhi salaatu wasalaam Bashir Gaxnuug Hargalka RTN xiriyaha Dadaab